Oslo. Det är du som ska börja först. Så välkomna till mikrofonen. Ja, hej! Min somaliska är inte så bra så jag pratar svenska. Är det okej? Is it someone here who doesn't understand Swedish who is from Europe? Somewhere around? Yes. I just wish to welcome you all to Västerås, this beautiful, nice city. And I wish that your stay here will be very pleasant. My name is Anders Telebeck and I'm the Deputy Major here in Västerås, and I'm a Social Democrat, and we are working to develop the cooperation between the Somali group here and the Social Democratic Party and the community as a whole. So, very welcome. Jag säger lite på svenska också då. Det är jätteroligt att vara här. Fantastiskt att träffa så många vänner. För det är ni verkligen. Jag har tidigare idag haft förmånen att få träffa en grupp ungdomar, somaliska ungdomar, som har bildat en förening som heter Somaliska ungdomsförbundet här i Västerås. En kille som heter Haji Hassan och Zakari Osman. Och det var flera stycken, och vi diskuterade där hur vi skulle kunna utveckla samarbetet mellan Socialdemokraterna här i Västerås, somaliska ungdomar och den somaliska gruppen som helhet här i Västerås. Jag ser verkligen fram emot det arbetet, där vi tillsammans ska kunna utveckla Västerås. Se till så att vi somalier kommer in och blir en viktig del utav att utveckla Västerås som stad. Där vi jobbar tillsammans med att se till så att det finns bra bostäder. Ingen ska behöva bo många i små lägenheter och trångt. Stora familjer ska kunna bo i stora bostäder. Det är en sak som jag skulle vilja att vi samarbetar kring. Utbildning, se till så att våra ungdomar, våra barn får en bra utbildning och en bra start. Men också ni som har kommit hit till Sverige när ni är äldre, se till så att man på ett bra sätt, hej Abdesalam, se till så att ni på ett bra sätt kan lära er svenska, men också samtidigt se till så att man kan komma ut och bli en viktig del av den svenska arbetsmarknaden, på jobb där man kan betala skatt och vara med och bidra till en gemensam utveckling. Det är det andra jag skulle vilja säga. Och det tredje, det här. وحدي لبعض السنة اللي موجودة واللي بعدها درا ولا هيد أو ده أنت أصلا قاري ودي اللوبي هذا طيار ودي تشتري ودي اللوبي هذا كهاني هيد ودي اللوبي ده كان كيني يفنكي يسوقانتي واللي اللوبي نبى ما شو دونك قبضي هيس قبل قاضي يسوي ناسا روح يسوي القاضي يانا رجلي وأنا بدي كيلا mid wiil qaadayo oo muxuu ahay gabar ku amaanayo gabar qaadaysa la arkay waxaan doonay in wixii soo celino oo soo dabaalno si dhaqanka yagii aan dib ugu noqono waxaan ku dadaalaynaa haddii Allah ilmo inaynu dhaqankii anagoo naqaan waxa sidaan isaga joogno inta Soomaaliya heshiido aan dib u noqono wax aan sidaan la tagnaa waxba anagoon garanayn أنا إنا تقنع عيبة مركب وحنا سبعينينا أباول ما سبعينينا أباول كانوا دقن كان يدهني يمحوها يشكين يمحوها يسوقانتين يسهل يعدكي يلحنكي وحي أنا جوا ضمنا كل حاجة شوقش سيان أنا لا ترتنا أو ولي بقى ويا أنا قاعد دايرانو مركب دل خروج مران شوقنا يدونو خروج مرتين كإشارة قاعدنا يدل كنا كل لابنا كل شوقة أنا كسي دايرينا ندورين وأنا إني وحنا شجعان أنا جو أنت شوقني ما في أنا مي أنا إنساس
سمعيني أنا كادي الله إنه سيستم كأنه كهبينه إنه برنامج كان فنك السجانتا وادي سوتشين دونا وسوقل دونا ودحين دونتان ما قرأت ويلي بحضارة بدل كانوا لي هاي وحبان قادم دونا تاني لما كنت بقى دونا أنا جو قاونه إسفيرس كان على هاي سؤال على هاي أنا صار الله قراءة مركبات داري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو عسلتي عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aad ugu faraxsanahay caawa inaan Festros uga dhawaaqno ururka Somali Idol ururkan oo ah urur aad iyo aad u ballaaran una ballaaran doono qorshaha aan ugu talagalnay run ahaantii sida aan u wadno ma noqon doono wax ku kooban sida uu noo sheegay Dinari qaaradda Yurub oo kaliya ilaa Aasiya America Canada ilaa Africa inaan gaarsiino ayaanu jeclaanay ururkan markii ugu horeysay oo fikradiisa la isku keenay ama laga soo fakiray waxaa jira dad badan oo suugaanyahana ah suxufiyiin dadkii dhaqanka oo muddo badan maskaxdooda ka guuxayay siday mar u miro dhalin lahaayeen nasiib wanaag inkastoo dhawaaqidii ay Festros yeelatay fikirkii ugu horeeyay markii aan isku keenaynay waxaan joognay magaalada Yaaflaboori gaar ahaan magaalada Soodarhaan waxayna ahayd xilligii fikirkaas aan isku keenay 1 Luulyo markaas oo aan u dabaaldegaynay xafladii 1 Luulyo oo aad taqaaneen inay tahay maalintii xornimada ay qaateen dalkeena Soomaaliya ruuxantii waxaan aad ugu faraxsanahay in aan reer Festros ku bilowno kadibna waan faafin doonaa haddii Ilaahay idmo waxaan kaloo idiin sheegaynaa inuusan ururkaan ahayn urur xirxiran ee uu noqon doono urur u furan yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed qaasadan inta fanka jecel suugaanta jecel annagoo dadkeena abwaanada ah ama aqoon-yahanada sida ay noo ballan qaadeen qaarkood kuwa kale badanna hadda urur ku jiraan fariimo ka helnay aan sugayno sida ay nagala qayb qaadan lahaayeen miro dhalintiisa waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshada fanka jecel meel kasta oo ay joogaan in ay nala soo xiriiraan haddaan nahay Somali Idol waxaan ku soo dhaweyn doonaa gacmo furan inta fanka jecel oo rabta inay fankooda soo saaraan inta nala shaqeyn karto oo gacan naga siin karto iyo dhammaan dadka ay qusayso oo dhan barnaamijkan markii dhanka loo eego wuxuu faa'iido weyn u yahay in ka badan 20 sano sida ay la socotiin wadankeena wuxuu ahaa wadan burburay dadkii way soo kaceen ilmo yar ayaa la keenay wadankan maanta waa dad waaweyn ilmo kale badanna way inoogu dhasheen halkan sidaan u bari lahayn dhaqankeena suugaanteena iyo waliba afkeena Soomaaliga sidii uu ku soo bilowday waxa ku jiri doona aqoon isweydaarsiyo badan dadka uga faa'iideyn doono haddii Ilaahay idmo sida ay tahay fankeena ama afkeena xilligii uu soo aasaasmay waxaa barnaamijkan si toos ah uu noogu bilaaban doonaa wajigiisa koowaad bisha Abriil isla sanadkan haddii Ilaahay idmo waxaan dib ka soo sheegi doonaa halka aan ku dhigi doono iyo meesha aan ku qaban doono sidoo idin sheegay Dinarina gunaanadka ama gabagabada wuxuu noqon doonaa dalka Djibouti oo ugu talagalnay in aan ku sharafno I want to
Child.